assalaamu calaykum. waan ku salaamay daawada meel walba aad joogtid kusoo dhowow qaybta koowaad ee sheekada ku saabsan dilaaga ubaxa gaduudan. waa sheeko xiiso badan oo tarjumaadeedaan ku mashquulsaneen muddooyinkii ugu dambeeyey. min bilow ilaa dhammaad sheekadan haddii aad la socotana waxaad ogaan doontaa macluumaadyo badan oo ku saabsan dhanka sirdoonka iyo sidoo kale dambi baarista. sheekadan anigoo maracadde ayaa idinla socodsiinaya barta youtube-ka ee maracadda show ayaadna ka daawanaysaan. aan ku hormarna qaybta koowaad ee sheekada. daariq ayaa waxauu ku soo baxay boor yarkaasi oo ku qornaa xafiiska yaara ee dambi baarista gaarka ah. dhankii xafiiska ayuu ku soo leexday isagoona albaabka soo riixay gudahana u galay. daariq xilligii xafiiska uu gelaya ayaa waxaa xafiiska u ahaa mid gebi ahaantiiba isku dhex yaacsan yahay. ma uusan helin qof xafiiska ku soo dhoweeya, sidaasi aaweedna dhismihii markii uu galay wuxuu u jeestay qolka keliya ee uu leydhka ama nalka uu ka daaran yahay. waxaa qolkaasi albaabkiisa qaybta hore ku qornaa magaca yaara. daariq ka hor inta uusan gelin albaabkaasi wuxuu ku fekeray inuu dib uu ugu laabto, balse wuxuu naftiisa uu ku qanciyey inuu horey u sii socdo, waayo iyadu waxay leedahay macluumaad muhiima oo kiiskiisa ku saabsan ayaan hayaa. marka daariq waxa uu ka fekeray halkii uu dib uu u guran lahaa in uu soo arko waxa ay hayso. albaabkii qolka ayuu 2 mar uu soo garaacay, kadibna wuxuu maqlay codka ka dalbanaya inuu gudaha uu soo galo. intaasi kadib albaabkii intii uu riixay ayuu gudaha u galay. markaas ayaa wuxuu arkay iyada oo fadhiday xafiis duq ah oo yaalay qolka qaybtiisa dambe. daariq hore ayuu u garanayaa yaara, sidaasi aaweed mar alle markii uu arkay ayaa wuxuu aad ula yaabay siday isku beddeshay. waxaaba moodaa qof kale oo gabadhii uu garanaya maba ahan. markii uu u galay ayaa intay kursigii ay ka soo kacday waxay ku tiri, daariq waxaad ku timid waqti xadidan, waana soo dhaqsatay ee sidee tahay? waxaana ugu jawaabay, waan fiicanahay anigu. jawaabtaas yar inta uu siiyey ayaa wax uu ku fadhiistay kursigii horyaallay xafiiskeeda. intaasi kadibna inta kursigii ay ka soo kacday ayaa waxay u soo jihaysatay halkii isaga uu fadhiyey. waxay ku fadhiisatay kursigii uu ku fadhiyey mid ka soo horjeeda, waxaana kadib ay ku tiri, iiga waran shaqada. inta uu jawaabay ayuu ugu yeeray, waa heer sare. inta sidaasi uu yidhi ayuu haddana usii raaciyey, maxay tahay macluumaadka aad ka haysa kiiska amiiradda? yaara ayaa markii ay aragtay sida daariq uu u degdegsan yahay mowduucana horey uga abbaaray waxay ku tiri, daariq ma sidaas ayaan ula dhaqmaysaa saaxiibadaadii hore? waxaan dhihi lahaa saaxiibtaadii hore soo maahan. ima weydiinaysid miyaa xaalkayga iyo waxaan ku suganahay? kadibna hadalkii inta uu qaatay ayaa wuxuu yidhi, adiga waad ogtahay sababta aan aniga halkaan aan u joogo. aniga halkaan uma aanan imaanin sheeko iyo kaftan, sidaasi awgeed ii sheeg xogta aad haysa iyo waxa ay tahay. hagaag, weli sidii ayaad u holkarsan tahay. waqti inuu kaa dhumana ma doonaysid, waan kuu jeedaa, balse ka hor inta aanan mowduuca aanan gudagelin ugu yaraan wax cab, ayay ugu jawaabtay. intii sidaasi ay dhehaysa ayaa batoonkii yaraa ee xafiiskeedii yaallay ay garaacday sida ay caawisadeedii ugu imaato, balse wax jawaaba ma aysan helin. markaasi kadibna daariq ayaa wuxuu ku yidhi, bannaanka aniga ayaa haatan soo maray, cidina ma aysan joogin. yaara ayaa markaasi inta ay madaxeedii yara xogatay wejigeediina care ay ka soo muuqatay waxay tidhi, waa dhucil aanan shaqadoon ahayn. waxay moodaa marba haddii mushaarkeeda uu ka soo daaho ama uu kadib dhaco inay xaq u leedahay xilligay doonto inay halkaana iskaga timaado iskana tagto. intaasi kadib markii yaare ay sidaasi ay tiri inta fadhigii ay ka kacda ayaa waxay ku tiri, aniga ayaa kuu diyaarinaya cabitaanka. balse daariq oo gacanta ugu tilmaamaya jawaabta ayaa wuxuu yidhi, waxba uma baahni, muhiimna ma ahan inaan intaan ka badanaan waqti aan iska sii dhumiyo, ee ii sheeg xogta aad haysid. intaasi markii ay tiri kadib kursigeedii ayay dib ugu fadhiisatay, indhahiisii ayay eegtay. markaas ayay intay neef iska soo riixday waxay tidhi, xaqiiqda waxay tahay aniga inaanan marnaba aanan haynin wax xoga oo ku saabsan kiiska. dhinac kasta ayaana kiiska aan ka baaray, balse natiijo waan ka gaari waayey. ninka aan raadinayana macnaha keliya ee aan heli kara waxay tahay inuu yahay reer aakhiraad. waqtiguu doono ayuu soo muuqdaa, wax caddaymo aan ka haayana ma jirto, wax caddaymo uu ka tagayna ma jirto. sidoo kalena macno ma lahan oo aan ku qeexi karaya isaga. yaara ayaa markii intaasi ay tiri kadib daariq kursigiisii ayuu ka kacay isagaoo yidhi, ma waxaad iigu yeertay oo aad igu qasabtay inaan kooxda baarista aan ka soo tago keliya inaad ii sheegtay warkan? intaasi markii uu yidhi yaara ayaa fadhigii hagaajisatay oo lugihii iskor saaratay iyada oo tiri, xaqiiqda waxay tahay in joogitaankaada halkan uu markhaati uu ka yahay kooxda baarista wadda, xaalkoodana waxba uusan dhaamin midkayga oo kale, maadaama aysan haynin macluumaad ka badan inta aan kuu sheegayo. intaasi kadibna daariq wuxuu u jeestay dhanka iyo albaabka isaga oo yaara kusii lahaa, marka hore ayayba qalad igu ahayd inaan halkan kuugu imaado.
intaasi kadibna waxay ku jawaabta waa sax inaadan halkan wax xog ah oo ku saabsan kiiska aanan ka helaynin, balse waxaan garanayaa habka iyo waddadii aad xogtan aad doonayso inaad ku hesho. markaasi kadib inta uu dib hadalkeedii uu u maqlay ayaa waxa uu ku yidhi inta uu dib kursigiisii ugu soo laabtay, ii sheeg waxa aad ii hayso, waddada aan xogtan ku heli kara waan doonayaaye. markii intaasi hadalkiisii uu ku yidhi ayaa wuxuu u sii raaciyey, markaanina wax hordhac ah iyo hadal jiidjiidma ah ma doonayo, mawduuca keliya horay u gal. intaasi kadib gabadhii Yaara ahayd inta ay dhoolla cadaysa ayaa waxay eegtay indhihiisii oo waxay tiri waxaan kaa doonayaa hadalka aan ku leeyahay inaad si fiican aad u dhegaysato, kadibna inta aad ka fikirto ka hor inta aadan tallaabo qaadin aad go'aan ka gaarto, waayo annaga halkan waxaan uga hadlaynaa kiiska ugu muhiimsan boqortooyada, xitaa waxaa macquula inuu yahay kiiska ugu muhiimsan adduunka maanta aynu joogno. iyadoo hadalkeedii wadato ayaa waxa uu Daariq uu ku kala jara hadalkeedii uu wuxuu ku yidhi, waan kuu sheegay ma doonaya hadal la jiijiido ee mawduuca toos u gal. Yaara ayaa markaasi intay neef weyn ay ka timid waxay ku tidhi necromancy. markii Daariq uu sidaasi u maqlay ayuu wuxuu yidhi, maxaad ula jeedaa? waxay tidhi, waa hab sixir ah oo lagu wareysta dadka dhintay. mar kale Daariq isagoo gabadhii hadalkii ku kala jira ayaa wuxuu yidhi, anigu waan aqaanaa waxa necromancy uu yahay, balse su-aashu waxay tahay waa maxay xiriirka ka dhexeeya necromancy iyo kiiska amiiradda? kadibna gabadhii Yaara ahayd ayaa mar kale u jawaabtay oo waxay u tidhi, ka fakar, arrinta isweydiinta mudanna waxa ay tahay keliya waa kuma dadka arkay dilaaga ubaxa gaduudan. waa dadkii uu dilay, waxayna arkeen ka hor inta uusan dilin, sidaasi aageed annaga oo adeegsanayna habka necromancy waxaan awood u yeelan karnaa inaan dadkaasi xogtooda aan soo baarno oo aan ka gungaarno. kadibna isaga oo yaaban ayaa mar kale wuxuu ku yidhi, waad waalan tahay, caqligaadana ma la socotaa waxa uu afkaaga uu ka soo saarayo? kadibna waxay hadashay iyadii oo waxay tidhi, maya ma ahan khuraafaad, necromancyna waa xaqiiqo, waxaan garanayaa dad hore loogu tijaabiyey arrintan. sheeko dheer ayaa Daariq iyo sidoo kale gabadhii Yaara ahayd ee halkaasi maalintaasi ay ku wada qaateen. kadibna waxay u sheegtay in waxay u sheegaysa keliya aysan ahayn wax khuraafaada. Daariq ayaa markaasi kadib wuxuu yidhi, haddii xaqiiqo ay tahay arrintan ma la socotaa adiga waxa aad ka hadlayso iyo waxa ay yihiin? waxaa markaasi iyada oo aanan u aaba yeelin jawaabta ay siinayso ay tiri, waan ogahay in uusan arrin dabiici ahayn, balse si fiican ii dhegaysa aniga. arrinta aan kuu sheegaya waa xalka keliya ee maantana hortaalla. aniga kiiskan 10 jeer ayaan baaris ku sameeyey, balse dilaagan lacnada ayse ku dhacday ma ahan mid caddeyn iyo raad toona ka tagay, sidaasi aageedna ma jiro cid awood u leh inay isaga ay soo qabato. aniga ayaan soo qaban karin oo adiga ayaan qaban karin, xitaa sistamka dowladda ayaan soo qaban karin, sidaasi aageed waxaa habboon inaan isticmaalno nidaamka necromancy. intaasi markii Yaara ay tiri ayaa Daariq mar kale fadhigii uu ka kacay, waxaana uu yidhi, xal kale ayaan u heli doonaa, xitaa haddii aanan samaynin qorshaha aad adiga keentay, markaasi wixii dhaca ayaan arkaynaa. isagoon hadalkiisii dhammaysan inta ay ka dhex gasha ayaa waxay ku tiri, adiga weli ma aadan fahmin waxa aan ka hadlaya soo maahan. arrinta aan kaala hadlaya ma ahan kiis iska caadi ah kaasoo aad adiga aad xallin karto ama aad ku guulaysan karto, xalintiisana cid kuu qabsanaysaa ma jirto. laakiin kiiskaani waa kiis haddii uu xirmo noloshaada aysan marnaba sidii hore aysan ahaan doonin. laba mid ayaad noqonaysaa, inaad xalliso oo aad noqoto xidig weyn, ama inaad ku fashilanto kadibna aad noqoto mid mar walbaa la guursado, mana jirto cid xasuusan doonta dadaalkaada iyo waxqabadkaada. Daariq markii uu ka soo baxay xafiiskii Yaara ayaa wuxuu u jeestay dhanka iyo gaarigiisa isagoona maskaxda iska lahaa xaqiiqdii Yaara way waalan tahay iyo arrimo kale, maadaama necromancy iyo arrimo kale ay u soo jeedisay. Daariq wuxuu ahaa mid maskaxdiisa u shaqaynaysa si xowli ah markii ay soo wacaysay Yaara uuna u sheegaya in kiiskaani uu xog oo ay uga hayso xilli uu ku sii jeeday guutadii oo isla howlgalayeen ee B6. waqtigaasi wuxuu ahaa mid moolka kaga jiray xal u helidda howsha u taalay isaga, gaar ahaana guutada, wuxuuna ku mashquulsanaa faylasha kiiska afduufka amiiradda. fayl walba ama malaf walba markii uu baaris uu ku sameeyo ayaa waxay ahayd ugu yaraan inuu helo dun darafeed oo uu kaga dhago si ay u gaarsiiso dilaaga ubaxa gaduudan. xilli uu xaalad caynkaasi uu ku jira ayaa waxaa la soo xiriirtay Yaara iyada oo ku tiri, waxaan ku hayaa xog ku saabsan kiiska afduubka amiiradda. markii hore ma uusan fahminin isagii oo wuxuu yidhi, yaah waa kuma?
waxa uu fahamsanaa hadalkeeda balse waxa uu aamini la'sanaa hadalkay u sheegayso sidaasi awgeed ayaa hadalkeedii mar labaad ugu celisay si uu xaqiijiso oo waxay tiri waxaan kugu hayaa macluumaad muhiim ah oo quseeya kiiska amiiradda. markaas ayuu ugu jawaabay sidee maxaad ogaatay ma ii sheegi kartaa? telefoonkuguma sheegi karo waana qasab inaan mar kale aan kulanno oo wax walba aan kuu sheega ayay ugu jawaabtay. kadibna wuxuu weydiiyey xaggee ayaad joogtaa? hadda ayaan kugu imaanayaaye. intaasi kadib daariqna wuxuu si degdega uga soo tegay guutada B6 oo uu ku sugnaa. wuxuu u jihaystaa halkii Yaara ay joogtay. halkaa ha inoo joogto qaybta koowaad ee sheekada ku saabsan dilaaga ubaxa gaduudan. anigoo maxamed ciise maracadde ayaa idinla socodsiinaya. Maracadde show ayaad ka daawanaysaan. qaybta xigta intaan ku kulmi doonno waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.